السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وبلال مصطفى الطاهر إن بدن بان وحويا كجري أم بان هالجميي على كاسرة بيلكستون تجارت والاستبوذي حديقة عن تيدا نقطة هدي ميلكستون نقطة عقرا يا دور سنة كورت تبص سنة كور قار بيقولوا علو جرو هيجي ورعلى كريم وعلى الريرويان وعلى القبيل ما ترى وحارك يقول يقهر وحوي ميلو بس يقهر بريه waayo waxaa shalay toolay aaminsanayn ayaan anigu 7 sano ka hor aaminsanaa inuu maalin ii hiilin doono in dadkiisu jecel yihiin in dadkiisu ay waxa weeyaan iskay tusi doonaan in waxa weeyaan dhowr iyo 20 kun dadkiisu waxa weeyaan ii soo bixi doonaan in waxa weeyaan ay noqon doonto xaafadeedu xaafadda ugu qiimaha badan noqotay xaafadeedu xaafadda ugu sheekaynta badan noqotay xaafadeedu xaafadda ugu maxaween magaca weyn ugu facaweyn maanta daami alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan leeyahay Somaliland hambaliyo marka ugu horeyso waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bixi Cabdi waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cimriga ku dheereeyo allana ha ku xifdiyo waxaan kaloo aad u salaamayaa waxa weeyaan xisbiyada mucaaridka mudane Cabdiraxmaan mudane Faysal Cali Waraabe waxaan aad u salaamayaa shicibka reer Somaliland culimo iyo waxa weeyaan cid walba leh si qiimo badan baan u salaamay waxa weeyaan dareenkayga maanta waxaad noo sheegtay inaan jeceshiin calanka ay ku qoran tahay laa ilaaha illa allah maxamedur rasuulullah waxa weeyaan maanta anigu waa dugsadaa meel kastoo adduunyada ka joogo waana ku dhaaranayaa mar kaste maantana waxaad moodaa inaan harsanayo qaar badan oo maanta qolyahooga aan ka soo jeedaan aaminsanayn oon hore u aaminsanayn maanta waad arkaysaana isagaynu harsanaynaa isagaana inoo hiiliyey waanu ku faraxsannahay meel kastoo jooga cadowgiisana ha jabo naf iyo maal iyo dhuux iyo dhiigna waanu u huraynaa insha allah cid aan uga habeelilaa ma jiro siiba inteeda reer Somaliland ee Somaliland degan intaa kadib waxaan leeyahay hambal iyo xildhibaanada soo baxoo dhan marka hore ee reer Somaliland intii dhacdayna waxaan leeyahay dee haddaad imtixaanka baastiya haddaad dhacdaba labaduba waxa weeye lagaama guulaysana waayo arag baa tahay intaa kadib barkhad baan waxa weeyaan horena waan ugu hambaliyeynay haddana waan u hambaliyeynaynaa maasha allah tusaale waxaa idigu filanba dee waad arkaysaan xaafadeedu maanta inaan laga seexan habeenkii waxa weeyaan xaafadda daami inuu waagu u baryey mar 6dii galabnimo markii laga bilaabo ilaa 5tii subaxnimo ilaa 8dii subaxnimo way soo jeedeen maasha allah cid walba ehelkayga ah ambaan walaalanahay amana dhalayba amba wax noo ah way soo jeedeen iyagoo waxa weeyaan ku faraxsan inankooga guuleystay hambaliyaan leenahay intaa kadib waxaan u sheegayaa dhalinyarada beelaha qiimaha badan ee reer Somaliland ee sharafta badan ee maanta aad arkaysaa in Aljazeera bay digana sheekeynayso inaad ka dheeraataan maanta inaad wax sii fahantaan mooyaa inaad hoos u noqotaan inaad tusaale idin noqdo waxa weeyaan idinkaaba maanta amba inakaaba maanta nasiib leh barqad jaamac inoo noqdo barqad wuxuu sameeyey siyaasadiisii buu iibgeeyey qof kastoo reer Somaliland waa ka gaday siyaasadiisa iyo mowqifkiisa shalay toole dadyo badan oo aan garanayno oo iska sheeganaya way iska jiraan laakiin aqoon akaademiga markuu bilaabay barqad xaafadda daami ka bilaabay gudoomiyuu ka noqday waa ka baxay madaxtooyada ayuu xafiis ka qaatay waa iska casilay isagoo markaa hankiisu weli balaag bartii buu haddana jaamacaddii waxbarasho kale kasii bilaabay haddana xisbiga wadani baa ku biiray in yar kadibna xooghayaha xisbigu noqday in yar kadib wuxuu noqday afhayeenka xisbiga in yar kadibna wuxuu helay 22 kun oo cod iyo in waxa weeyaan ka badan khadra pastor baa ugu badnaa malaha waqtiyadii hore ee doorashooyinka Somaliland waqtigoodu 9 kun oo cod iyo 10 kun oo cod lama dhaafi jirin isageena moona maanta adiga arkaya marka barkhad wuxuu jeexay dariiq qof kastoo siyaasi oo daami ka soo jeeda amba meelaha kale Somaliland ka degtan ka soo horjeeda maxaa laga rabaa inaad ku cibro qaadato
somalilan inay u baahantahay cid baraarujisa somalilan inayna jecesha aad bay noo jecel yihiin ma garatay waayo waxay naga dhexeeya waa waxa weeyaan waa ehelnimo dhiig dheecaan walaaltinimo dad dalkeenu wada degannahay dalkeenu wada leenahay calankaa waxa weeyaan ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah baa naga dhexeeya waxa weeyaan waa cagaarka iyo caddaanka iyo waxa weeyaan casaanka waad fahantay ma kaasaa naga dhexeeya marka kaasaynu waxa weeyaan aynu leenahay mar walbana allow gargaar allo keyga nabato dadkana gaarasii labiyo gobonimo dadkana gaarasii labiyo gobonimo balen waxaan ugala socdaa marka inaad ka faa'iidaysataan ood ogaataan maanta mar walba in aad tihiin dad reer somalilan inaad xaq u leedihiin dalka inaad ka talisaan xildhibaan iska daaya inaad xaq u leedihiin inaad waxa weeyaan in badan yeelataan waad fahanteen maan u malaynaya marka waxaa idiin sheegaya isku duubnidu waxbay soo kordhidaa laakiin kala foqfoqaanaatu iyo annakaa waxan iyo annakaa waxana waxba ma soo kordhiso waxaan u sheegayaa markaa dhalinyaradaas inaad ka faa'iidaysataan ood iska daysaan waxa weeyaan waxaan dantiina idiigu jirin waxaan idiin sheegaya hal meer ha wada marina oo wada siyaasiyiin ha noqonine kala beydhbeydha qaarow dhinaca dee qanacsiga insha allah ku dadaala si wax badan ee waxa weeyaan aynu wax iskaga bedelno ay wax badan inoogu bedelmaan marka ani dareenkayga lama soo koobi karo waxaan in badan sugayey oo in badan ku riyoonayey baa dee runtii arkayaa anigu horta siyaasadda ma jecli inaan siyaasi noqdana anigu runtii hubbigayga ma aha laakiin waxaa hubbigayga ah inaan mar walba xaqa ka hadlo anigu dadka soomaaliyeed meel kasta jooga waa jecelahay laakiin waxaan ka jecelahay xaqa kelimadda xaqa ka jecelahay marka in badan anigu halgamaa waxaan usoo halgamayo inay maantoo kale inaan arko maantana waan arkay runtii waanan ku faraxsanahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aadna waan ugu faraxsanahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inaan arko somalilan runtii qurux badan somalilan cadaaladi ka jirto somalilan nuuraysa somalilan waxa weeyaan loo wada heelan yahay somalilan aada u qiimo badan maanta way timid waxaan u sheegayaa waa inaanu ilaalinaa markaa haddaynu nahay waxa weeyaan qolyooyinkii caban jiray amba cabaadi jiray amba waxa weeya waxyaalo kale ka hadli jiray amba lagu tilmaami jiray faquuq iyo haybsooc iyo waxa weeyaan laangaabnimo war maanta waad arkaysaano shaksi baa idiin sharaxlaayo shaksigiina oo matalaya dee sida iyagu waxa weeyaan waraaqa ay ku soo qoreen aba magacan ay ku soo qoreen ee waxa weeya gabooye hadday anaas noqoto hadday tumaal noqoto hadday badhibaan noqoto hadday buuso noqoto hadday waxaas oo dhan noqoto shaksi aynu ku dayno mudan weya waxaan kaloon aada ugu hambalyaynayaa qof kasta oo waxa weeyaan ku nool reer somalilan sida qiimaha badan ee sharafta badan ee wanaagsan amba qurbo ka jooga ama meel kasta ka jooga waxa weeyaan maanta aad heeryada iskaga tuurteen waxaan u mahadnaqayaa qof kasta oo reer somalilan meel kastaba adduunyada ka jooga marka waxaan ugala socdaa oo aan jecelahay amba aan doonayaa in waxa weeyaan hankeenu waxa weeyaan kor noqdo inaynu iska dayno waxyaalaha qaar inaynu ka fogaano waxyaalaha qaar inaynu waxa weeyaan noqono dad garta wixii lagu doortay aba wixii lagu dooran lahaa dad noqda inaynu hore u soconno dad kor u sii socda dee yaa marka waxaa leeyahy alxamdulilah anigu beryahan dee life iyo waxaan kuma badnin waayo howlahayga dee waxa weeya iska badan waad arkaysaana codkayga isbedel baa ka muuqda xabeeb hadday noqoto hadday daal noqoto haddana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin marba xaaladaad ku sugantahay alxamdulilah baa ladhaha waxaan markaa ugala socdaa walaalayaalow meel kastood joogtaan beelahaasow waxa weeyaan haynu dhaqaaqno beel walbana wixii u soo kordha
aynu sacabka u tunno waayo 30 sano ilaa 31 sano xaafadda daami qof isaaqa unbaa sacabka laga tumiyey inaga maanta inayna doortaan ummadaasi waa abaal aynu gashanay qof waxa weeyaan isaaqa oo la dooranayaan maayir xaafadda laga doonayaan baydka sacabka un baynu u tumayno gob baynu nahay gobonimadu waxaynu u dhalanay gobonimo baa maanta dee wax weyn laynagu dooranaya dariiqa maanta la jeexayna waa dariiq markaste xalle doorasho leh alwartu waxa ku faraxsanahay qofku inuu waxa weeye fagaaraha imaado qofku markuu fagaaraha imaado wax allaali wax ka xumaanaya ma jiro waad qancaysaa cilmi baad yeelanaysaa waxbaa kuu soo kordhaya waxbaa kuu saxmaya waxbaan kuu saxmayn waxbaa kuu imanaya waxbaan kuu imanayn guul iyo gobonimaba markaan waxaan ugala socdaa walaalayaal meel kastoo adduunyada ka joogtaan inaynu waxa weeyaan wax iska bedelno qofkii wax u soo kordhayaana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha u siyaadi annagana nasi dad yowgan la deganayna saas weeyaan intaa waynu shaqaysanaa waxbaynu cunnaa waxbaynu cabnaa qof reeraheenu baktiyaya ama baahan amba dawirsanayna ma arag meel kasta ha jooge xoogeenaasaynu maalnaa xoogeenaasaynu waxa weeyaan waxa weeyaan noqonaa markaan waxaan ugala socdaa kolley way iska iman doontaa waxyaalaha kale dhiman way iska iman doonaan waxyaalaha kale waxa weeyaan dhiman laakiin aynu ku dadaalno sidii waxa weeyaan aynu u fahmi lahayn nolosha inteeda kale alxamdulilah 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 intaa kadib aad baa idiin salaamaya meel kastoo adduunyada ka joogtaan si qiimo badan baa idiin salaamaya meel kastoo adduunyada ka joogtaan reer somaliland haddaan nahay kaasumaa naga dhexeeya kaad arkaysaan ayaa naga dhexeeya si sharaf baa inooga dhexeeya si gobonimo inooga dhexeeya si walaaltinimo inooga dhexeeya si guul iyo gobonimo inooga dhexeeya si wada jir inooga dhexeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi walbarakaatu